السلام عليكم صاحبيال رمضان الكريم أنا ولد من كل ياهي waxaan idin wadaa mowduuc aad iyo aad u xasaasi ah fadlan intaan mowduuca u guda gelin kor waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartaan YouTube channel-kayga idinkoo intaas ugu dhiirigelinaya waa in yar oo fudud kaliya subscribe saar kadibna share garay like kana raaca mowduucan u guda galo waxaan maanta idin wadaa sida ugu fudud ama saddex sababood kaliya oo aad ku ilaalin karto qofka aad jeclay waliba maalmo yar gudahood saddex sababood oo aad ku ilaawi karto qofka aad jeclay ee ku silciyay ama nolosha kugu cileeyay ama markaad jacaylkaada u bandhigatay kaa diiday ama tusaale xataa xiriirkiina muddo soo jiray isagu kaaga baxay oo aad meeshaas ku kala tagteen waxaan ku hayaa saddex sababood oo keliya haddaad samayso aad qofkaas ilaalaysa inta badan waxaan aragnaa in xiriirka labada qof kamida uu dhibaatooyin badan maro weliba qofka dambe uu silco uu ku rafaado oo yani maaragtahay jacaylka yani maaragtahay looga baxo laakiin keliya waxaan ku siinayaa saddex sababood oo haddii aad samayso qofkaas aad ilaaweysa sababta koowaad horta marka ugu horeysa naftaada ka dhaadhacsay qofkan inuu yahay qof marka horeba aad ku qaldantay oo aan kuu qalmin iska dhaadhacsay adiga naftaada adaa maamulo naftaada waxaad iska dhaadhacsaysaa qofkan inuu yahay qof aan kuu qalmin bataatanba marka labaad dhammaan waxyaabaha xusuusaha keeni kara ee aad ka hayso iska daligaray lambarkiisa block saar ciwaanadiisa aad ka hayso block saar Facebook WhatsApp imo meel walbood ku wada xiriirtaan iska block garay sidoo kale fariimihii idin dhex mara iska daligaray waxaa kaloo samaynaysaa sawiradii iyo waxyaabihii yani maaragtay xusuusaha keeni karay oo idin dhex maray kulli waa dalidgaraynaysaa qodobka saddexaad iska ilaali inaad qofkaas aad qof kale yani maaragtay su-aalo ka weydiiso tusaale inta badan waxaa aragnaa laba qof markay kala tagaan oo qof kamida oo qofkaas jecel yahay wuxuu sameeyaa inuu qof kaloo saaxiibkiisa intuu tago dho hebel ka waran intuu ku nool yahay intuu ku dambeeyaa muxuu qabtaa ma guursaday ma shaqeeyaa iyo waxyaabo lamid ah no looma baana arrimahaas inaad gasho qofkan wuxuu ahaa qof aan kuu qalmin oo aad marka horeba ku qaldantay naftaada canaano adiga ayaa maamula meel walba waad ka balow garaysay sawiradii aad ka haysa waad dalid garaysay fariimidii dhexmar waad dalid garaysay waayo aad qofkan u raadinayso amay ha wareysan hana raadin qofna ha ka wareysan iskana ilaali meelaha uu ku sugan yahay inaad yani maaragtay ama booqasho ku tagto ama aad soo marta xitaa meelaha aad isleedaha qofkan uu joogi karaa ama uu ku sugan yahay ka fogow waa ballan saddexdaas sababood haddii aad sameydo qofkaas si dhaqso leh inaad ku ilaawi doonto weliba maalmo yar gudahood waxyaabaha ugu badan ee qofka xusuusaha gelin kara waa inuu sawir ka haayo oo mar walba sawiradiisii yani maaragtahay arkaayo inuu ciwaanadiisa hayo tusaale Facebook oo kale oo Facebookgiisii booqanaayo waxyaabii oo qofkan soo boostigeliyo oo kale uu arkaayo waa waxay hore usii wadi karaan inaad qofkan sii jeclaato sidoo kale inaad su-aalo qof weydiiso waxay yani maaragtahay kugu sii dhalin qofkii jecel sababta qofkan waxaa laga yaaba markaad su-aalo weydiiso inuu ku dhaho qofkaas maasha Allah qof fiican waayo kuu sii ammaano adi qofkan xaggaada kama ammaano sababta waa qofkaa tegi kuumaba qalmada mar walba naftaada waxaa loo raadiyaa qofka adiga ku jecel ee lama raadiyo qofka aad jeceshahay muhiimada koowaad waxaad siisaa qofka adiga ku jecel waxaa muhiimada siina qofka sababta qof adiga aad jeceshahay sababta waa qof beri kaa tegaya laakiin qofka ku jecel kaama tegi karo taangis waa mahadsantihiin fadlan subscribe saar YouTube channel-kayga videoga sii share gareeya keliya waa dhiirigelin yar oo aad ii samayseen inaad subscribe saartaan waa jeclaan inaad ii saari doontaan boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin